السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرا تسكس والله باش معنا 10 كلمات wuxuu ku saabsan yahay faalada ama comments-yada. Haddaba waxaan leenahay faalada qurxinta ama faalada CSS ama CSS comments-yadiisa. Okay, faalada ama comments-yada waxaa lagu qeexaa ama looga hadlaa waxa aad adiga qoraysid. Okay, waxaad ka faalootaa oo waxaad adiga qortay. sidaa awgeed baa loo leeyahay markaa waxaa lagu qeexaa waxa aad adiga qorayso ama aad coding gareynaysid. Okay, wixii adiga aad qoraysid ama aad coding gareynayso, iyo taasoo laga yaabo inay kaa caawiso haddaad dib source code-ka muxuu yahay? waa coding waliba adiga meeshaad ku qoraysid baa loo yaqaanaa source code. markaa tusaale ahaan kaba soo qaad, waxaad rabtaa inaad source code-kaagii sanad kadib inaad dib u furtid. ma xasuusan kartid wixii adiga qortay, laakiin faaladii ama commentskii markaad akhrisid waad ogaan kartaa waxani waxa adiga aad ula jeeday. haddaba sidaa awgeed baa loo leeyahay halkaa, taasoo laga yaabo inay kaa caawiso haddaad dib source code-kaaga u tafaftirinayso, aad editing ama aad u edit garaynayso muddo dheer kadib, hadday ahaan lahayd sanad ama 2 sano. sidee ama qaabkee loo qoraa faalada ama comments-yada? haddaba CSS ama qurxinta faaladiisa ama commentsku wuxuu ka bilowdaa calaamada. Okay, waa calaamada slashta iyo xidigta. wixii adiga aad ka faaloonaysidna halkan baad ku qoraysaa, kadibna waa inaad kusoo xirtaa calaamadahaasi. tani waa faalo sida dalka ku horetana calaamadaasaa ka horeyso, calaamadaasi baad ku xiraysaa. Okay, calaamad baa ka horeysa, calaamadaana way ka dambeysaa waad ku xiraysaa. midda calaamada slashta baa horeyso, xidigtii baa dambeyso, middaana xidigtii baa horeyso, slashtii baa ugu dambeyso. haddaba tusaalahaan kaba soo qaado, waxaad rabtaa inaad ka hadashid, waa inaad ka faalootaa waxyaabahan oo kale. haddaba waxaan leenahay paragraph aad soo qaadatay, qoraalkiisii dhexda baan dhignay. tanna waxaan leenahay waa faalo kale ama comments kale. kadibna waxyaabahani ma ahan wax meesha markaa browserka kasoo muuqanayo markaad wax ka faaloonaysid. Okay, kaliya meesha waxaa kasoo muuqanayo waa waxyaabahan kale, laakiin mar haddii calaamadahaasi aad dhexgelisid waxa adiga aad qoraysid ma ahan wax soo muuqanayo, kaliya waa faalo. waxaan rajeynaya inaad fahantiin qaybta faalada.